waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee Maxamed Abshir isugu yimid maanta haweenka jamaahiirta ka soo jeeda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo ka qayb galay munaasabadda soo dhaweynta garaadada iyo isimada deegaanadaasi oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho isla markaana ku soo jeeday magaalada Garowe haweenka jamaahiirta SSC oo boqolaal kor u dhaafiyay ayaa waxa ay ku sugnaayeen afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee Maxamed Abshir xilli mikrofoonka VOC ay la dhex qaada ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan soo dhaweynta munaasabadda garaadada iyo isimada deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee SSC imika waxa barbarkayga taagan Aamina Yuusuf oo ah afayeenka ururka haweenka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland imika waxa diyaar loo yahay soo dhaweynta ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ay ku soo dhaweeyeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو هالكن اسكوغو نميد سو دوينتا اسمدا كسو امبابحاي مقدشو oo in dhaweyd boogu maqnaa shaqo hawleed waxaanu meesha soo istaagnay maanta 12kii mana daali doono waxaanu sugaynaa inta soo caga dhiganayso diyaaradda sida ismadayada sharafta badan iyo waftida kale la socotaba waxaanu leenahay dadka ka soo qayb galayaasha kulligood waxa soo kiciya shucuurtaas oo ah tii halganka qayb kamida oo joogta Garowe waa jamaahiirtii Garowe SSC khaatumo oo aan mid ka maqnayn dhalinyaro iyo waayeel iyo gabdho iyo wiilal kulligii waxaan idin leeyahay maydaan habsaamin hawshiinina kamaydaan daalin waad mahadsantihiin waa ha socota hawsh waa dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhammaan madashan maanta aad u quruxda badan sidee u aragtaa soo dhaweynta ismada waxaan u arkaa ismada dhaqanka waxaan la soo koobi karin farxad aan kala go'ahayn 12kii duurnimo ayaanu isa soo taagnay ilaa iyo xilligaana waanu taagannahay mana aanan daalina mayno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ismadayada ka soo duulay Muqdisho oo noogu maqnaa dantayada iyo danta SSC iyo danta guud ee khaatumo SSC aad baan u soo dhaweynayaa maasha Allah waxaan kala mahad ballaaran aad ugu jeedinayaa mahad ballaaran u jeedinayaa in allaana intii saxaafada ee ka hawlgashay halgankii SSC dhammaan ilaa min koonfur ilaa min harti oo dhan aad baan u hambalyeynaya hambalyan leeg garaadadayadina waanu soo dhaweynaynaa waana u taaganaa alxamdulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan dadkan isugu yimi xafladan quruxda badan ee soo dhaweynta ah garaadada isimadeena qaaliga ah waxaan leeyahay soo dhawaada isimada qaaliga dhammaantiin oo salaamaya isimada qaaliga waxaan halkan kelmad ka leeyahay Muuse Biixi waxaan leenahay nooga bax waddankayaga hadduu Allaah leeyahay nooga bax waddankayaga inta ku hadhay ka qaado ciidamadaada inta aan ciidamada inta kale israacin dhimashadooda laga qaado meedadkooda iyo dhimashadooda dhiig islaam ma rabno ka xisaan u leenahay haddii kale waajibkaaga la marinayaa waxa lagu keenayaa iyadoo meedada Hargeysa laga xisaan leenahay naga xayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaahay baa mahad iskale isku keenay soo dhaweynta garaadada sharafta leh aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada guusha ay ka soo hooyeen kulan Muqdisho iyo kulankay lahaayeen waxaan leeyahay oo ku darsanaya Muuse Juudaan anaga oran mayno Muuse Juudaan iyo waxaan leeyahay asalaam waxaan leenahay dalkayga naga bixinaa lihiin haduu leeyahay saasan ku soo weynahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حسن محمد علي حسن انتنا VOC Garowe